wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka janaalkeena xogta dalka qodobada warka janaalkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona shirka madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Rooble oo Muqdisho ka furmay Mahdi Maxamed Guuleed oo isaga cararay Muqdisho kadib cabsi la soo diristay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle oo farmaajo eedeyn u jeediyay kana hadlay xaaladda dagaal ee ka jirta beledweyne Xasan Daahir Aweys oo taageero u muujiyay farmaajo eedeyn u jeediyay Xuseen Cayndiid garoonka diyaaradaha oo Muqdisho oo laga cabsi qabo in waqti kan dagaal uu ka bilowdo xilli ciidamo ka amar qaata farmaajo ay garoonka ay la wareegeen xaaladda Itoobiya sidee iyo wararkii ugu dambeeyay TPLF ayaan warkeena janaalkeena xogta dalka idinku soo gudbin doona daawadayaal haddaba haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like share garee commentigaaga dhawaano muhiim ah ku bilaaw qodobka ugu horeeya ee warka janaalkeena shirka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka furmay gudaha magaalada Tani Muqdisho ee caasimadda dalka shirkan ayaa waxaa si gaar ah looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaana gudoominaya shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada Muqdisho shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana diiradda lagu saaraya amniga iyo dardargelinta doorashooyinka iyo daafurnaanta iyo jaangooyinta xilliga la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa shirkaani inta uu soconayo ka doodi doona caqabadaha haysta doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo in gebi ahaanba sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo asaatee madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxa Maxamed Xuseen Rooble uu yahay mid kalsooni buuxda wali aan ku qaban Mahdi Maxamed Guuleed qadar ayaa waxa uu yahay shakhsi gebi ahaan waqtiga kan magaalada Muqdisho isaga cararay kadib markii uu ka cabsaday xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan siyaasadeed ee ka jira gudaha magaalada Muqdisho Mahdi Maxamed Guuleed qadar ayaa kamid ah tiimka farmaajo waxaana uu hadda gebi ahaanba isaga baxay magaalada Tani Muqdisho Mahdi Guuleed ayaa waxa looga bartay inuu si gaar ah u taageero Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah hogaamiyihii hore ee dalka waxaana hadda uu yahay mid jahwareer soo wajahday maadaama uu labada dhinac uu taageero u muujinayay inkastoo ra'iisul wasaare Rooble uu kalsooni buuxda uusan ku qabin Mahdi Maxamed Guuleed qadar haddana waxa uu Mahdi Guuleed uu rajeynayay in uu guul u gaaro maadaama ra'iisul wasaaraha dalka shaqo joojin lagu sameeyay isla markaana uu ku sameeyay madaxweynihii hore ee dalka taasina uu Mahdi uu doonayay inuu ka faa'iideysto maadaama uu yahay isaga ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed qadar ayaa ku jahwareeray gudaha magaalada Tani Muqdisho isagoo hadda gebi ahaanba dalka isaga cararay go'aankani Mahdi Guuleed oo isaga cararay gudaha magaalada Muqdisho ee filla Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli tiimka farmaajo ay jahwareer xoogan ay ku jiraan horeyna magaalada Muqdisho isaga tagay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaasi oo ku jahwareeray xaaladaha kala duwan ee ka jira dalka dhanka kalena warar dheeraad ah ayaa ka imaanaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaa waxay sheegayaan in laga cabsi qabo in dagaal uu ka dhaco garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga ayaa horay ciidamo booliis ah oo ka amar qaata u geeyay garoonka hadda waxaa laga cabsi qabaa in uu dagaal toos ah uu ka dhaco garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ciidamo ka amar qaata Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo warar hoose aan helay ayaa waxaa la sheegayaa in la geeyay gegada diyaaradaha Aadan Cadde taasi oo noqon karto dhibaato kale oo bulshada Soomaaliyeed waqtiga ka soo wajihi karto inkastoo maamulka garoonka diyaaradaha ay horay u sheegeen in ay si gaar ah kaga fiirsanayaan wax waliba oo ku aadan xaaladaha siyaasadeed ee waqtiga kan dalka ka jiro jahwareerka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa maalinta ka dambeysay waxa uu muuqanaya mid aad u adag iyadoo mas'uuliyiinta qaybaheeda kala duwan ay si gaar ah ay u kala taageerayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa tiimkiisa haysta culays aad u xoogan maadaama ay doonayeen in ay wax waliba ay guul ay ka gaaraan
dhanka kalena madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa weerar culus ku qaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isagoona ka digay xaaladaha siyaasadeed ee waqtiga ka jira qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare oo wareys cusub bixiyay ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo isagoona sidoo kale ka hadlay xiisada ka taagan Beledweyne Waare ayaa waxa uu si cad u sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in uu sidoo rabo uu ka yeelanayo dastuurka kula tumanayo shuruudaha dalka waqtiga kana ayna suuragal ahayn in wax waliba lagu fiirsado sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in Farmaajo xiiladiisa dagaal ay tahay mid qatar ah isla markaana uu qof mas'uul ka ah waqtiga kan loo baahan yahay in la helo maadaama dhibaato badan uu geysan karo madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu fariin u diray dhammaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ugana digay in uu mar kale gacanta u gelin talada dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka Hirshabelle ugu baaqay in gebi ahaanba sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyo dagaalada ka bilowday qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne oo sida gaarka ah looga soo horjeedo generaalka hanaan siyaasadeedka madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe aan ku qanacsaneyn waxaa maalinta ka dambaysa madaxdii hore ee dalka ay si gaar ah kaga hadlayaan xaaladaha kala duwan ee waqtiga kan ka jira iyo sidoo kale dhibaatooyinka mararka qaarkood bulshada soo wajihi karto bulshada Soomaaliyeed ayaa cabsi xoogan haysata iyadoo midba dhan uu goodinayo haddana qof waliba oo shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay yihiin kuwa aan hadallo cad aan ka muujinaynin maadaama dhibaatooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho ee ka jira ay yihiin kuwa looga baahan yahay waqtiga kan in shacabka Soomaaliyeed ay meel cad ay ka istaagaan inkastoo Maxamed Xuseen Rooble Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo mas'uuliyiinta kale ee madaxda maamul goboleedyada dalka ay hadda u muuqanayaan kuwa kaliya wax waliba danahooda eeganaya haddana shacabka Soomaaliyeed ayaana cid u maqan aysan jirin madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ayaa rajada ugu wanaagsan ay leeyihiin waxa ay tahay in ay si fudud wax waliba ay ugu soo gabagabowdo dhanka kalena Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu si cad u weeraray Xuseen Ciidid isagoona taageero u muujiyay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka falceliyay wareysi uu dhawaan uu bixiyay siyaasiga Xuseen Maxamed Faarax Ciidid oo sheegay inuu Farmaajo la dagaali karin oo xabad uusan ridi karin Xuseen ahaan aysan Muqdisho ka dhici karin xabad Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay inuu dhageystay wareysigaas isla markaana uu soo baxday in Xuseen Ciidid uu soo marayo meel mar hore la soo dhaafay sidoo kale Farmaajo uu ku tilmaamay nin la mid ah Xuseen Ciidid oo aan isbedel awoodeed waqtiga kan aan lahayn Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay in mar lagu sirmay Xuseen Ciidid oo loo maleynayay inuu leeyahay kartida aabihiisa oo kale balse uu hadda u muuqanayo mid aan wax karti aan lahayn Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu sheegay beesha Abgaal in waqtiga kan ay wax wanaagsan ay sameynayaan isla markaana guulaha ay gaarayaan Abgaal ay noqon karto mid marnaba aan la dafiri karin sidoo kale Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu ka hadlay Farmaajo iyo sidoo kale awoodda waqtiga kan uu dalka uu ku leeyahay waxana uu tilmaamay inuu mudan yahay isla markaana muhiim ay tahay in faraha laga qaado hadalka Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeeyay siyaasiyiinta qaybaheeda kala duwan eedeymo kala duwan ee u jeedinayeen Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Xasan Daahir Aweys ayaa Farmaajo ku dhaliilay sababta uu la dagaali laayahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble una keensaday markii hore isaga waxaana uu sheegay in uu hadda loo baahan yahay inuusan ka xishoonin isla markaana uu meel cad iska marsiyo Maxamed Xuseen Rooble sida uu sheegay hogaamiyihii hore ee ururka Xisbul Islaam Xasan Daahir Aweys oo hadda ku xiran gudaha magaalada Tani Muqdisho guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawaneyseen janaalkeena xogta dalka waanaga inta daba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like share garay commentigaaga waa noo muhiim